ma ogid in adigoo Greek jooga aad cid u dacwoon karaysay waana waa jawaabtaadu inay ma tahay qodobka 4636 ee 2019 soo baxay waxa uu ku siinayaa xaq ah inaad cid u dacwoon karaysid waa hadii qaxoontinimo lagu aqoonsaday hase ahaatee waxaa jira laba qodob oo ay tahay inaad aad ugu baraarugsan tahay si aad dacwad u samaysid qodobka koobaad waxa weeye Greegu waxa uu ku siinayaa muddo cayiman oo la ogol yahay inaad dacwad ku xiraysid muddadaasi waa 3 bilood 3 bilood hadii aad dacwad ku xirayso shuruudaha lagu xirayo aad ay u yaraan doonaan taa kama dhigna in hadii 3 bilood dhaafay aan dacwad samayn karayn dabcan waad samayn kartaa hase ahaatee shuruudaha marka aad 3 bilood ugu horeysa haysato way ka duwan yihiin marka aad waqtigu ka dhacay okay qodobka labaad waxa weeye inaad haysato qof sharci yaqaan oo arintan ka caawiya sida anigoo kale oo kula fuula geed gaaban iyo geed dheerba si aad hadafkaaga ugu rumayn lahayd sida wadamada kaleba aad ugu dacwoon karto caruurtaada sayigaaga ama sayidadaada ayaad Greegana ugu dacwoon kartaa hase ahaatee wadankani waxa wadamada kale dheer yahay inaad waalidkaana u dacwoon kartid xataa adigoo qaangaad ah okay waxa jira shuruudo dhowr ah oo la iska rabo in ay waalidku buuxiyaan si ay halkan u yimaadaan okay si aad faahfaahinta ka badan u hesho waxaad u baahan tahay inaad luuqa TikTok-ta nagala soo hadashid ama lambarkayga profile-kayga saaran nagala soo hadashid ama aad booqatid website-kayga diriam.gr sidoo kale ha ilaawin haddii aad reer Greek tahay inaad timaadid xafiiskayga si faahfaahinta ka badan lagu siiyo waad mahadsantahay